السلام عليكم وانا احمد موسى. maanta waxaan wadaa video logo animation oo saa ku aragteen videoga bilowgiisa yani logo oo kasoo sabaxayo QBR kasoo sabaxayaan. soo marka animationkaas waa animation fudud qof kasta sameyn karo. soo marka intuu sida loo sameeyo waxaan sameynaa kulligood sign out wada taabano aan riixa x delete kadibna camera bisaan dhaafanayna. marka waxaan u baahanahay dhul soo add mesh kadib waxaan leeyahay plane kadib plane kan waxaan ka dhigaynaa 10 متر by 10 متر hadhow tulaa yaree karnaa ama badi karnaa haddii aan u baahno. soo markaa waxaan soo gelinaynaa cube-kana waan yareynaynaa waxaan ka dhigaynaa eber dhibic 25 camal. haddaa fiirsiin cube-kan waxaan rabnaa wax korna u qaadna moogtahay inta waxaan ku qoraynaa eber dhibic 13 camal koru u qaadaa wax yariis. haddaan ka fiirino dhinacan haddaan taabatid haddii aad taabatid lambar 1 ama haddii aad taabatid meeshaan yaad waxaa ka fiirinay geeska ka fiirinay hadda muuqaalka dhulkeena haysano laakiin hadda ka fiirino dhinaca wireframe waa la arkaa waa kana baalkeena dhulkan wax yar uu ka qaadsan yahay waxaan rabnaa dhulka marka asma animation-kiinu hoos u dhaco. soo hadda kan hadda waan ka dhamaanay waxaan aadaynaa kana taabanayna hal mar kadibna waxaan maana dhinaca ku qoran tahay modifier kadibna waxaan leenahay add modifier kadibna array modifier. soo marka waxaan malaysaa labadan inay isku dhagan yihiin maadaama sida isku dhow yihiin meeshana waxaan kala sikanayna eber dhibic 5 ka dhigay si wax isku dhawaadaan. soo markaan badina hal mar waxaan ka dhiganaa camal 15 xab camal amara dhinacna u sikina wax yar amar meesha inay imaado waxa ka dhigaa random si yani kal raanti u fadadana u arkirtiin. soo kana iska xira kan hadaa taabtid tii ka xirmaan kan geeskan taalo kadibna waxaan sameynaynaa array modifier kala aan dalbanaynaa laakiin kan had x mu urabna dhinaca y da urabna hal eber 5 kadibna inta ka badi karnaa sigana hada ka fiirisid kor ama waxaad taaban kartaa lambar 7 ama waxaad taaban kartaa ziidan haddii lambarantan ku shaqeynaynin oo akiisaha laga fiirinayo waxaa maanta inay imaatid edit kadibna preference waxay maana dhinaca ku qoran tahay input kadibna waxaad dalbanay emulate number pad haddaa isticmaalaysid laptop haddaa isticmaalaysid computer oo PC oo keyboardkaaga yani uu ku xirneen bahalka ayuu kugu shaqeyn doonaa laakiin laptop isticmaalaya soo waxa u baahanaa kan way daarnaado dhaxan isku dayayna keeno bis hadda waan ku qanacsanahay hamar kamerada ka fiirna dhinaca kameradana si yani u dhaqaaji kartaa adoo isticmaalaysid WASD adoo isticmaalaysid u baahan tahay waxa baahan tahay maad dhinaca ku qoran tahay view kadibna navigation kadibna walk navigation. laakiin haddii aad right click aad taabatid haddana aad dhahdid assign shortcut kadibna waxaad taabataa shift F taabo kadibna inta kugu soo qormaa markasta taabatid shift F kadibna waxaa ku shimi doonto walk navigation. blender kana isticmaalayo waxa waaye 3.6 laakiin blenderyaashii hore oo 2.79 oo aan ku bilaabay wuxuu ahaa jiray shift F uu ahaa jiray saas aan ku dhigay shift F. soo kamerada waxaan geenaa meel ay anfacayso hadaba baan inaan badisin inaan geeskan u sikis sidaan oo kale badi kartaa array modifier. soo hadda waan ku qanacsanahay meeshaan kor ani waxaan haystaa arrow ay daaran oo la dhaho modifier ay daaran haddii aanad haysanin wax inta ka daara kartaa mid la dhaho modifier tool inta ka daara kartaa bahaladan ku siinaya extradan ku siinaya haddii sid modifier yar badan ma taqaan inta taabaleed saan dhileed apply aadana kan apply kan saddexaad afraad kulli asaas sameeleed inta ku wada yeelan wax kasta u baahan tahay haddii u baahan tahay inaad wada qariso modifier-yaasha dhan waxa taabanaya meeshaan kulli wada dibna haddii kulli ku wada furan yihiin waxa taabanaya kan wada yareena ama wada dhigayna kulligooda hadana waxa u baahnaan apply all hadaa fiirsid wali meeshaan waxa ku haysanaa hal xabo cube. soo marka waxaan sameynaa in hamar cube kan taabto waxaan riixa m kadibna waxaan inaan new collection kadibna magaca oo bixi kartaa. soo cube sans kaga bixiyay inta wuxuu u sameynaa collection folder uu sameynaa folderkan hadda hal xabo ku jira ka dhow toole mid kasta waxaan ka dhigi doonaa hal xabo. soo marka waxa fiican inay meel iskaga jiraan inta wada buuxsami lahaayeen. soo hadda waxaan imaanaynaa edit mode anagoo taabanayno cube-keena edit mode aan taabanayna ama waxaad taaban kartaa tab kadibna a kulli wada taabo aaduu taabanaysid kadib waxaad taabataa p separate ku dhigi doonaa separate by loose part. soo hadda kala raanta waa aragteen hadda waxaan ka dhigay random aan ka dhigay moogtahay mid kasta wuxuu siinaa color gooni u sii doonaa hadhow toole markaa imaadid hadday imaadid dhinacan oo renderka kala raanta meesha doono hadda waxaan ka baxaa dhinacan aan ka baxaa
edit mode-ka meeshaan haddaa fiirisid folderkii aan sameynay hal xabaa ku jira moogtahay hadda waxaa ku jiraan 252 xabaa ku jiraan laakiin hal dhibaataan haysato haddii aan hamarkan aan taabto kan ugu horeeyo aan dhaho s meeshaas uu ka weyneynaa yani waa sidaan rabna moogtahay laakiin haddii aan taabano tusaale ahaan oo kale mid halkan ku yaalo kale aan dhahno s wuxuu ka weyneynaa meeshaas uu ka weyneynaa laakiin waxaa rabaa inuu halkan ka weyneeyo dhexda moogtahay dhexda kama weyneynayo haddaan dhahno rotate meeshaas uu ka wareejinaa hamar folderkan hore ee noogu jiraan kameradiina qarinaynaa halmar kameradii dhulkabo kadib waxaan riixaynaa a kulli wada taabanaa kadibna right click aan riixaa kadibna waxaan dhigi doonaa set origin aan dhigi doonaa kadibna waxaan dhahaynaa set origin to geometry haddaan dhahno tusaalahaan oo kale kan oo kale haddaan dhahno scale meeshaasuu ka weynay doonaa r meeshaasuu ka wareeji doonaa wax walba waa sidaan rabnay so hadda dhulkaan soo cesho doonaa hadda waxaan u baahannahay loogihiina u baahannahay marka hore waan save gareynaynaa hal mar shift s ka taabo kadibna save garey magac u bixi so haddii aan aqaan sida loo sameeyo loogahaaga 3D waxaa sameyn kartaa sidaan sida videoga blogga ku aragteenbo cube soo qaadane cube-kan waxaa ka dhigi kartaa camal wax yar weynay eber dhibic 5 ka dhigaa soo laba jibaar ugu weynaaday kuwaas kale kadib hamar waxaan aadaa dhinaca shaderkan aadi doonaa marka shaderka imaano waxaan siinaynaa material aan siinaynaa cusub waxaan dhahaynaa new kadibna magaca iskaga bixi loogahaaga iyo waxaa rabtid u bixi kadibna dhinacan ay ku qoran tahay mataqaanaa base image waa colorka yani bahalkan yahay haddaan meeshaan gelino sawirka wuxuu kusoo bixi doonaa meeshaan uu kusoo bixi doonaa kanaan jiida hamar kadibna sii daayi doonaa kadib waxaa ku qortaa image kadibna image textra kusoo bixi doono color kadib kaas taabo kadib waxaa dhahdaa open markaa dhahdid open waxaa raadisaa loogahaaga raadso aniga loogahaygaan isticmaali doonaa kanaan isticmaali doonaa kadibna wax kasto isla markii hore muso wada bixi doonaan sababtoo waxaan u baahanahay wax kale inaan sameyno waxaan u baahanahay inaan riixno tab inaan imaano edit mode-kan aan dhahaynaa a kadib waxaa riixdaa u kadib waxaa dhahdaa cube projection hadduuna sawirka meel kasta wada gaarayn waxaa sameyn kartaa inaa imaatid dhinacan ay ku qoran tahay uv aridka kadibna markaa imaatid dhinacan uv-ga waxaa riixdaa a kadibna s waa weyneyn moogta scale loo soo gaabiyey s kadibna waxaa riixdaa x so haddaa ku laabaan dhinaca shaderka meesha wuu la ekaaday laakiin waxaa malaysaa inuu korkor u jiidan yahay ama dhinacan aan kusoo laaban karnaa uv-ga intainaan taabano s aan kadib dhahaynaa y kadibna sidaan aan u weyney karnaa saa intuu ku aragna waxaa sameynoono waxaan ka dhigaa inta waxaan riixaa meeshaan ay ku qoran tahay viewport shaderka saa u ogaano waxaan sameynoono dhinacan taabanaa hal mar kadibna intaa ka weyneyna laakiin waxaa ogaataa inuu texturka mataqaana uu noqon doono repetitive so haddii aa sayd u weyneysid wuu soo laalaabana taas si loo hagaajinaa tusi doona hal mar laakiin aan weyneyna leh hal mar hadda uu la ekaaday mogtahay laakiin waxaan u baahanahay inaan ka bixino waxyaalahan extrada dhinacana imaanaa shaderka mar saddexaad kadibna waxaan dhahaynaa meeshaan ay ku qoran tahay repeat mataqaana waxaan dhahaynaa clip so repeat ma sameynaa maadina ma ku celcelinayo so hadda saabta u weyney kartaa saabta u helay kartaa so ma soo laalaabanayo laakiin anig texturkayga wuxuu ahaa png mogtahay hadaa fiirsida png dhinacan madowga dhan waa transparent yani waa lama arkayo wax meesha gadaal yaalaan so markasaa colorkaas aan ugu bedelno madowga waxaan kanaan soo jiida hal mar kadib waxaa ku qoraa mix kadibna intraan leeyahay waxaan gelinaynaa meeshaan hoose colorkan marka hadda wuxuu isku dari doonaa color kan sawirkeeni iyo colorkan isku dari doonaa waa mix mogtahay wuu isku walaaqaya ma la karaa wuu isku darooyaa wuxuu sameeyaa mix uu sameeyaa isku darooyaa labadan color so colorkan waxa ka dhigi karnaa waxa rabno blue gaduud wax kasta oo baahanahay hadaan ka dhiga camal cadaan laakiin cadaanka waxa malaysaa inuu kor saaran yahay so marka sidee u sheegi karnaa inuu dhinacan bis ka jaro so maadaama hadda uu colorka yahay png waxaan haystaa alpha haystaa mogtahay alfada haddaan riixo mar control shift haddaan riixo aan kadib klika 2 mar aan riixo waxaa arkaya mask camal inuu yahay dhinaca colorka waa cadaan dhinacana waxa ahayn noo madow so haddii aan kan qabano aan gelino factorka meeshaan kore factorka wuxuu qabtaa asiga moogtahay muhiimadiisu waxay tahay waa cadaanka isticmaal ama colorka isticmaal so bartamaha marka waxaan u baahanahay inaan u kala sheegno ku isticmaali lahaa laakiin waxaan isticmaalaynaa alfadan isticmaalaynaa haddaan gelino sidaa rabnuu sameynaya laakiin aad isdaba mariyey so marka dhinacan aydan sawirkeenaan gelinaynaa b kana waxaan ka dhiganaa cadaan 100% so marka haddaan colorka bedelno
kaas dambe isbedeli doonaa. Hadda meeshan waxaa keeni karnaa sawirka aan siinaa labada kalar labada xabo iskor saaraa kadib wuxuu isticmaalaa alfadu ay mask oo kale noo tahay. Laakiin anaga mar rabnaa wax kale isticmaal haddaan kabsa u baahanahay. So marka control shift click aan riixa kan. So marka haddaan bilaawno physics-kiina bilaabeynaa inaan hammers kana soo qaadayna waxaan keenaynaa dhulka hoose number hal riixa kadibna waxaan u dhigaynaa hoos aan u dhigaynaa kan haddaan ka fiirino kor hal mar waxaan qarinaa hal mar kadibna waxaan riixi doonaa S kadibna shift Z oo weynaynuna meel kasto intaanan ka ahayn Z Z-ga hadaa ogtahay waa kor iyo hoos moogtahay waa sidaan waxaan doonaa weynay objectigan laakiin aan isticmaalin Z soo sanara inuu ahaa sababtoo hadhow talo waxaan rabaa inuu wax badan wada qaado markuu kor usoo kacayo inuu dhowr object kor wada qaadaan rabo inaan mid ka mid iska taabano aan dhehena asiga waxaa sameysaa rigid body so marka waxaa baahan dhulka inaan taabano aan siino rigid body aan ka dhigno passive meeshaan marka haddaan soo bilaawno mar laadaan fiirino wakaana hadda lama dareemayo laakiin dhulka hoos u dhacay hoos u dhacay kulligooda hamar aan wada siin hal mar wax meeshan wada yaalo dhan collectionka waxa ku jirna saawada taabana hal mar waxaan taabanaa collection kana taabanaa right click kadib waxaan leenahay select objects so kulligooda wada taaban doona waxay ma doonaa meeshan ay ku qoran tahay object kadibna rigid body kadibna waxaan dhigi doonaa active so kulligooda hadda wuxuu wada siiyey object wada siiyey haddaan dhahna play hoos ay ku wada dhici doonaan kulligooda so marka hadda waxaan u dhiman kan in asigana aan ka dhigno rigid body aan animation na siino waxaan taabanayna meeshan ay ku qoran tahay rigid body kadib waxaan ka dhigi doonaa passive kadibna waxaan dhigi doonaa animated dhulka waxaan furi doonaa kan animationka hal mar dhinac kameradana ka fiirinayna kadibna inaa imaana dhinac objectiga dhinacna ay ku qoran tahay z location aan riixinaa dhibicdaas haddana waxaa imaan doonaa 40 second camal kadib kor aan u qaadayna so aniga waxaan riixaa G kadib Z kor aan u qaadi doonaa kadibna markaan wax yar aan kor usoo qaado waxaan riixi doonaa okay kadibna waxaan taaban doonaa dhinacaan haddana oo diamondka iga riixi doonaa mar labaad haddaan aan kasoo bilaabno animationka kow aan dhinac kamerada ka fiirino save gareyso control S kadibna haddaan dhehna play wax dhan ka hor u wada qaadeen so saarabna ma noqonin marka waxaan u baahanahay kan inaan siina rotation yar animationka waxaa ka dhigi doonaa meeshan hamar 60 aan ka dhigi doonaa waxay ma doonaa dhinacna ku qoran tahay 40ka waxaan riixi doonaa dhibcahan hamar kulligooda saan hamar kadibna ibran ku laabanaa kadibna waxaan sii doonaa rotation oo random aan sii doonaa so hadda fiirin mar labaad animationka intaan siin animation dhulka cube-keena wuxuu kusoo geli doonaa saan kadibna wuu isbedeli doonaa caadi u noqonaa kadibna laakiin waxaan u baahnaan waxaan koran inay ka dhaqaaqaan moogtahay so waxaan sii karnaa inuu xoogaa midig bidix uu u leexdo hal mar 40ka markay ka hor markay tahay camal 36 camal waxaan sii doonaa animation kan x-ka locationka aan ka dhigi doonaa hal mar 50 camal hal mar haddana kusoo bilaabo animationka kow laakiin bilaw waxa ogaataa meeshan konton keenan konton ka noqonin so every riix kadib ani meeshaas dhibcidaasna taabo saan happy aan ku ahay waxaan u baahanahay marka hore inaa animationkan dhaho bake dhulka hamar iska qari doonaa kadibna waxaan qarinaa cube objectigeena inaan mid ka mid taabto aan riixa a kulligooda wada taabsama mogtahay kadib waxay ma doonaa object kadibna meesha ku qoran tahay rigid body kadib waxaan dhihi doonaa bake to keyframe 1 ilaa 9 maarta ku dhihi doonaa yes aan dhehnaa kadibna axbaaraan sugeynaa hal mar intuu animationkan uu memory noo gelinayo saan u samayn karno render animation iyo hadda noo dhameeyey waxaan isticmaali doonaa ironkan la dhaho easy HDRI haddaba baahan tahay sidii loo soo loo isticmaalo video aan ka sameeyay meeshaan kore ka fiirso waxaan furi doonaa folderka ay ugu jiraan HDR-yaasha soo marib inuu noqdo mid oo focus ka saaran yahay nalkan bis nalalka la raba inaa caadi aan u keeno laakiin inuu iftiinka badanaa uu ka imaado HDR-ga so meeshaan quwaddan yaree doonaa eber dhibic 4 aan ka dhigaa inuu yaraado raba side waxaan riixaa shift S kadibna cursor to selected waxay imaan doonaa aad meeshaan kore kadibna nal waxaan soo qaadanaa spotlight kana inaan qabto
aan saan u wareeji doonaa hal mar. quwadiisna waa kan ka badi kartaa inaad taabatid meeshaan number waxaa geli kartaa 190 camal si u weynaada hal mar dhinacana riixa meeshaan ay ku qoran tahay size-ka waxaan ka dhigaa 90 degree. colorkan waxaan ka dhigi doonaa meeshaan orange. waxaan soo geli doonaa haddana waxaan dhigi doonaa shift D kadibna dhinacan kale aan keeni doonaa. haddana waxaan riixa dhex bartamahaas hal mar shift S aan riixa kadibna kowsha to selected inta waxaa rabaa inuu ii imaado nal kale oo saddexaad oo array. waxyaalaha rab inaa bedel waxay tahay mar inaa taabto cube-kan waxaan taaban doonaa meeshaan ay ku qoran tahay waxaan imaan doonaa dhinaca modifier-ka kadibna waxaan riixi doonaa bevel. cube-yaashan meesha yaalaa hataa waxay la tahay inay finaaleed inaan siiyo bevel. so mid kan aan taabanaa kadibna waxaan dhihi doonaa waxaan siinayaa bevel waan u yareynaa kadibna markaan bevelka hadda saana waa ku qanacsanahay inaan right click riixo kan aan select kulli dhihi doonaa kadib control L copy modifier inaan imaado dhinacan ay ku qoran tahay output waxaan riixi doonaa meeshaan output filekan animationka heli doontid meel ku save garsan waxaan dhigi doonaa desktopka PNG-ga inaan taaban waxaan ka dhiganaa FFmpeg kadibna waxaad taabataa dhibcooyinkaas meeshaas kadib waxaa ka dhigataa MP4 animationka inaad taabana meeshaan waxaan dhahaynaa render animation kadibna filekaaga wuxuu ku save gareynaa asoo dhammaystiran wuxuu ku dhigi doonaa desktopka animationkana sidaan u ekaa doonaa. marka maantaas ayaad intaas rabin inaan tuso sida loo sameeyo animation noocan oo kale intaa videoga dambe soo arki doona waxaan leeyahay mac salaama.